هذا حتى من أصل الشجرة سيد بعض شوية عادي بركة برفقة قدور له السلام عليكم دمانتي والسلام عليكم dadka meesha jooga aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dadka meesha ka soo qaybgalay Ibrahim hadal baan ka hadlaa Ibrahim maalin way tarbiin insha Allah sheegaysa maalin waxaan soo maray sanadkii hore hatta aad aragtid wixii aad sheegaysa waa dadmeynaysa runtii ma garatay say tahay Ethiopia say ku yihiin wajaale iyo say u joogaan iyo waxay ka sameeyaan dalka ay yaabsan talabaad anigu waxaan ugu imaaday dadku waxaan ugu imaaday dadka dowladda gaar ahaan mactasaab aad iyo aad ugu mahadcelinayaan runtii meesha uma imaan meesha calamo kale oo badan meesha soo dhigno waxaan u imaanay maanta waa kan calanka oo u imaanay calanka oo baan naqaanaa كلهم أنا بسوي كريه أنا وهذا أدي هلا جنبها بدي خاطبة تيجي لها مقالة أنا خاطبة ينام واحد تيجي ماركين أروح على قناة على كاس بسوق قري على كاس الله قناة عمان على كاس مدود بالتقية أوكي سعيد أجل بالله سنتهاي حتى وين كنت بيا وحنا ما يا إن نروح خلاص رئيس الدين برنامج كنا ونفرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء أنا لو جوال فيديو فرا لو قبتي فنانين ما شاء الله كون وجع لي وضع كامل كل Somalia nanti kalau afro berarti lebih sulit. Afro kasta, aros kasta, inak kasta lo kurso, orang kasta meri mata, aru hancaran naik ke suwi mata. Khatum ada yang dikatakan yang lain mata, Somalia ada yang lain mata, Somalia ada yang lain mata. Anu kata lah misalnya, Okmar hai, lama di Somalia itu di mata orang mana ya? Wahana cakap lama di sana itu ada orang mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somalia Allah. وبالتالي مرة إن شاء الله وحنا بالأفضل برنامجك وضب الأوضاع ونفري تبع عمارة توهي وكاسا معك وسنشيل الواحد السلام عليكم
ما شاء الله والله أكبر وفرحان يا سيدي ولد على حفلة ما شاء الله حنجعل هاي هذا فريس يا ومالا أنا حطيت يا عرفة يا عبد القادر قدوم يا سلام سيد ورك ثمان دقائق فضل كسو تجا ماشي راشد يا كسو تجا والله جدي أنا يا كسو تجا سيد ورك حريتها ما أنت قبلت الناس ومالها عليات المشكلة إن شاء الله راح نحكي لها كمان من الصومال الكلوريين حفلة نص كاسين ويحمد الدبل وحفلة دخول لهم كمان لو يقال إن شاء الله ويلكم كمان الصومالي سلام Somali Radio waxyaalkan wareys kula yeelanaysa Cabdirasaaq Maxamuud Raage Cumar Raage oo kamid ah madaxdii qaban qaabisay ama gudoomiyihii qaban qaabada ee xafladda 1 July dalkan Ireland
عبد الرزاق والله ورن سي حفلتي maanta أو dhacday horta ilaahay ma iskale muu maleeyeen horta sidii wax dhacay doonaan alxamdulillah horta my expectation ma ahayn maartay inay turn out kuna inta sagaari karayo ama yani isku maanayeen inta soconayaan aseesh alxamdulillah horta maartay aad baan u faraxsanahay inta timid inta imaanay waqti weysana dabcan maartay waqti dambe imaan doonaan sida ku sheegaba maartay waxay ahayd aan hore ugu dhawaajiyay waxay ahayd maartay tijaabo aan ku dhex galayo ummadda Soomaaliyeed bal maxaad ka dhex keeni kartaa khaasan reerarkan صح marka dareenkaagu maanta xafladan ballaaran ee qaban qaabisay ee markaynay dadka ka qayb galay intee leekaayeen Ireland oo dhan ahayd aad isku keentay Soomaalidii dareen noocee bay ku dhalaysay wallahi aad iyo aad u faraxsanahay dhiirigelin bay siinaysaa inaan hadda maaragtay oo hay mar labaad kulan dhalinyarada iyo maaragtay oo hay ugu yaraan ka soo bilaabo 18 ilaa 50 da'da inaan dib u soo waco marka dib u yeeri doono hadii Allah idmo muddo aan sidaa u fogay si aan uga hadalno waxa danteenu tahay oo Ilaahay ku badaraadee ma maartay diidayno qofka fikrada waa miisaan kara laakiin inaan helno dan guud oo naga dhaxaysa jirtay inaysan baabeen oo aan wayna baabaaday dabcan aan soo noolayno okay maxaad kula talinaysaa Soomaalida guud ahaan gaar ahaan Ireland wallahi kula talinayaa inaan soo xidhnaano laana Soomaalida maartay waa halka maalin jecelahay oo maalin aan noolayn لكن الحمد لله ما تبغى فرح صلاة وعشرة علشان مركي لما انتوا يا رحت قبرها صوتنا قصة ما لو سمعت له كلها تحت حوالي شيء يقول يلا غير لما حرن وقف ضد كاميرا مش هذا صح صوتي كان المكفر مش هو اللي طبعا هذا ربعنا مرة الشيء مركا عقدت لها كذا النقطة هاي هذا جينا أردا يا ولا تاجنا هاي الصومالي إن أنا سكوت ورنا وفر بروح أمسية ها أمسية هذا الله وأنا الله نضم جود وأنا مديسة وأنا اوكي عبد الرزاق وحفلة بلان بعد غلطي dadka oo dhabaad isku keentay xafladahan iyo meeting kale ma isku keeni kartaa dadka ma ku qorshaysan aad iyo aad u qorshaysan ku sheegayba waxaan rajaynayaa ku rajoonayaa inaan haddeertan joogo ka sheego fadhiga yani kulankan haddeertan aan kulanay inaan ka sheego inaan dib ugu baahan doono dhalinyarada ilaa da'da konton ilaa xataa qofka nagala qayb geli kara inaan dib isugu wacno annagoo Soomaali kala socon meel hebel kala socon sina u kala qaadin Soomaali kala qaadin oo magaca Soomaalida wixii la sheegta inta isku wacno ayaan rajaynayaa inaan wax gaarno go'aan ah kuna salaysan xiriir joogto ah ee ka dhaxeeya khaasatan Soomaalida Ireland si ay u noqoto tusaale fiican wadamada kale ee Soomaalidu ku dayacan tahay ee isbuugan ku lahayn ay ugu daydaan أو إنه قطع إن كسر إنه بقول تكوي كثير هنا لكن أوكي والله أصلاً عبد الرزاق وكاسو عبد الرزاق مرة أوكي هذه